أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع سائلكم ولياي لبدعة إلا إسكندر أخريو تكبيرتا مالنت عيدة تكبيرتا لقاضو oo kor loo qaado la jahriyo waa hadigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi ahadiithna way leedahay marka aymada qaar kood waxay tilmaameen in la iska si jamaaciya loo qaado la iska daba qaado waa bidcu rag baa yiri aymada kamid ah laakiin waxaad moodaa masaladu inaanay harka gaarsiisnayn ay mas'ala khilaafiya noqonayso oo la oran karo waa banaantay si jamaaciya in takbiirta loo qaado arintaasna ahadiith laga daliishanayo oo la qaadanaya ayaa jira waxa kamid ah xadiidka saxiixka ku yimi oo min xadiith Atiya ay leedahay kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid hatta nukhrij al-bikra min khidriha hatta nukhrij al-huyada fayakunna khalfa an-nas fayukabbirna bitakbirihim وحنا الأمر شيئا بحنو إلى قبلها قشانتي ده كشرة ميرها أستر كودا كشرة إني بحان هو حيث كقبي إني بحان الأمر يي مركز دمر كوع كنت كنيين حق الرجال قداش وده كنت كنيين فيكبرنا بتكبيرهم وحي كبارنا يانو ليمن يان تكبير توذكر يعني وإلا كبارنا يان لفظ كلاك قاسي صريح صراحة يكبرنا مع الناس dadka ayay la kibaaranayeen marka halka daahirka waa laga qaadan karaa in la isla kibaarto oo codka iyadoo korba loo qaaday asalahan in si jamaaciyan ay banaan tahay waana sida sheekh maxamed ibn salih al-uthaymin kitaabkiisa oo ku sharxinayo muslimka macnaha soo kale ayuu keenayaa in masaladu ay khilaafi tahay oo sugaya in kaasoo isagu jaanib kale uu raajix yeelayo wuxuu yiri wastadalla ba'd an-nas بقوله يكبرنا مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا تذكر قاركود وحي دليشدين حديث كأي كدليشدين إنما أنت عيد الله يصلى التكبير صنع يصير جماعي الله قال يكبر تكبيرتي وقد جاء في لفظ آخر يكبرن بتكبيرهن وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله وعن شك لين لفظه واحتماليه waxa ku suura gala in loo jeedo si jamaaci oo marka la isla qaadayo iyo si furaada intaba way ihtimaalaysa marka annahum yukabbiruna jami'an litakuna al-aswat arfa inay kor isla qaadaan si codku kor u soo baxo ayuu leeyahay sheekhu rag baa saa u daliishaday maadaama al-mas'alatu tahtamil marada mas'alatu tahay mid ihtimaalaysa sidan iyo sidatan fa innahu la yunkar ala man fa'ala at-takbira jami'an ولا على من فعله أفرادا وحيد مرة دي أرنتو عين كاتهينا ما بنانا مركا إلا يسكو إنكره وسي جماعي يددك وآخريي يسي فرادا فرد نوالي بنو قاركي سوا آخريو كربه هو قادة عدك لبدا حالة وضبا ويبنايين إلا يسكو إنكرانا صح ما أبو شيخ ليه ومحي حكمك دعاء ختمك wadaadada qaar sama qabaan bid'animadeeda duco la akhriyo oo khaas ah oo marka la dhameeyo lagu khatimo oo nabiga ka sugan ma jirto duco khaas ah oo nabiga ka sugan oo marka quraanka la dhameeyo la akhriyaa taas iyadu deelahan ma sugna xadiidka oranaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu quraanka dhameeyo oo suuratu qul a'udhu birabbin nas oo akhriyo bu alhamdu akhriya markaas uu ku xijinaya suuratu al-baqara awalkeeda ee laga soo gaaro wa ulaa'ika hum muflihun markaas ducadii khatmiga akhriya xadiiskaasna waa dhaif oo silsilada al-hadith dhaif ayad keenaysa waana culimadii hore way ku dhaqmi jireen xadiidka Soomaalida kulli inta aqeenay لكن إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيسا التبيان في آداب حملة القرآن وحليه ومستحب وسنة إلا الدعايسته
wali wuxuu leeyahay waa sunno mu'akkad ah in la ducaysto marka quraanka la dhameeyo waayo waxa weeye waa meel la filayo ducada qofka in laga aqbalo marka quraanka markuu dhameeyo inuu ducaysto wuxuuna keenayaa in Anas ibn Malik radiyallahu anhu saxaabiga la yiraahdo marka uu quraanka dhameeyo reerkiisa intuu yeero ayuu ducayn jiray markuu quraanka dhameeyo khatmka uu dhameeyo ayuu ducayn jiray caruurtiisa iyo ilin soo fadhiisiyo wuxuu kaloo keenayaa aathar marka xadiidkaasi aathartaas waa saxiix aathar kaloo mujaahid iyo rag loo taabiciintana ka warinayana waa jirtaa marka iyadu waxaad moodaa in aan hadal badan lahayn in quraanka marka la dhameeyo in la ducaysanayo oo qofku ducaysanayo oo ducadii marka uu ku soo dhacday Ilaahay waafajiyo ee ducooyinka jaamacada uu la imanayo wax dhibaato ma leh waxa uu ka taagan yahay marka quraanka la dhameeyo taraawiixda oo kale iyo ay aymada qaarkood waxay leeyihiin iyadu taasi lama ogola qaar bay bidca ku tilmaamay oo daliil looma hayo laakiin iyada qudheeda waxa la oran karaa dawaajisu ducaa oo markii wanalka awalba hadal waa ku jiray marka witriga deyn ducaysto marna ducaysto marna iska daayo ama la iska wada ducaysto marka waxaad moodayada qudhoodii aan waxba asiyarahayn in kastoo ducooyinka qaarkood oo sida ducada ay yiraahdeen khatmiga kitaabada qaarkood ee Turkiga meel lagu soo daabacay aan filay inay tahay oo ka hadla duca dheer leh waa khatmul quraan oo ibn Taymiyyah oo kutubta qaarkood ku taala taasina inay daciif tahay oo nisbada qudheeda aanay saxarayn baa jirta marka taa qudheeda waxa la oran karaa waa la ducaysan karaa waa ducaas iska banaan tahay wax baasiya mare wallahu subhanahu wa ta'ala alam sheekh mataageerika kacdoonada ama thawraadka mantiqada Carbeed kacdoomada waxay u bixiyeen Rabiicul Arabi ay oran jireen ay la tahay ragii waagi hore ka hadlay inaanay nataa'ij keenaynin oo sharciga ay khilaafsan tahay iyo ragii taageersanaaba waaqica waa la isula yimi oo waxay dhiiqday ama thawraadkaas ama kacdoomadaas waxay keeneen ummad waa ka warhaysaa asal ahaanna shariicadu diintu waxay ilaalinaysaa maqaasida kulliyaadka ee muhiimka ah oo ay ka mid tahay dadka diintooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo aqligooda iyo tarankooda waxyaabaha usuusha ee kulliyaadka ay ka mid tahay thawraadkaas oo aad moodo in loogu talagalay in lagu burburiyo caalamka islaami oo ficlan waa lagu burburiyay oo laga yaabo dadka ku kacay inay leeyihiin tagyiir baanu samaynaynaa ama anzimada jirta oo dulmi badan ka jiro baanu bedelaynaa waxaan leeyahay arintaasi arin sax ma aha tagyiirka la bedelayo nidaam iyo xukun jira dariiq lagu bedela bay shariicadu leedahay waa in waa tagyiir munkarku ama waxa ku saabsan qawaacida macruuf oo la isfaray munkarka la iska qawaacid bay jirtay leedahay oo hadaad rabtay wax bedesho munkar ka weyn waxa waa inaanay ka dhaalanaynin baasal ah saadarteed ba aymadu waxay leeyihiin hadii dadka meesha madaxda ka ahi ay islaam yihiin dulmi iyo jawr baa ku jireene in lagu baxo lagu buuqo oo lagu kiciyo wax dhibaato keeni kara oo gacan iyo dagaal iyo dhib kicin kara ma banaana waa manhajka Ahlusunnah wal Jamaaca hadii ay gaala yihiin oo diintii ka baxeenna iyada qudheedu waxay u baahanaysaa shuruud in la helo inay gaalooba haday gaalooba waa lagu bixi karaa laakiin awoodeedu way inay jirtaa way qaacidadii macruufka iyo munkarka in la bedelo waa in loo hayaa taaqo oo aanay ku rogmanaynin usuushii caamka ahayd oo dhiig ummadu haday ku daadanayso ku baaba'ayso ummadu oo maxaan ku dhahdaa maalka ku burburayo oo jiritaanka ummadu ku baaba'ayso meeshina waxba aan iska bedelaynin waa munkar baad soo kordhisay waxaanad khilaaftay manhajka sax ah war waaqis ka jira waxaynu ku weynay wax fara badan oo muslimiintu dalalkooda cilaaq baa lagu waayay yaan baa sii gilgeeyay la waayay oo shiica qabsatay oo mantiqada Ahlusunnah ahayd Suuriya ay ka bilowdeen kacdoonku baa ilaa hadda aan waxba gacan lagu hayn ummadina dhamaatay ummadii si loo baabiinayay guriyaheedii maalkeedii diinteedii dhiigoodii waa la baabaashay qax iyo waxay galeen iyo jab iyo halaag bay galeen dhulkii qiimaha badnaa bilaadu shaam barwaaqada iyo nicamta iyo diinta iyo khayrka iyo waxa yiilay ragga haysteen nusayriyada ay gaalabaha ahaadeen oo taayfada nusayriyadu waa gaalo laakiin waxaan garanayaa iyadoo 82kii ay ku baxeen niman damcay inay wax bedelaan markaasuu magaaladan oo xamaal la yiraahdo ayay indiyaadloosu ku dukum daahur inta dhowr iyo 10 kun baa la dilay
oo la xasuuqay 82 baan waxaan isugu nimid kuwii soo qaxay ee meesha ka yimaan waraystay wala ka waraa meesha markaasaa waa calaacalayana waxay ku leeyihiin meesha say dacwadu noo ahayd iyo ummaddu say khayrku cilaanka loo haystay iyo dacwadda iyo khayrka la faafinay ummaddu say ahayd iyo saan u baaba'anay waxa laga sheegan kara maaha markaas dhintay mid kale oo ku dhalay baa yimi sheekh i'tikaafka ma bannaan tahay inaan baxo iyadoo arrinta aan u baxayo laga kaafin karo waa qofku inuu naftiisa masaajid ku xabiso oo iyadoo biniyat al-ibaada uga jeedo masaajidka fadhiisto oo uu ku nagaado oo aanu ka bixin baa la doonaya wuxuu u bixi karaa waa un xaajo iyo wuxuu daruuro ah oo ka maarmi waayay buu u baxayaa su'aasha waxa ka muuqata waxa weeyaan cid baa ka kaafiday Aisha waxay leedahay كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الناس لحاجة الإنسان يعني حاجتي سون بوسو قريت شري وحدنا وعلى فسر يا كورتاجي إيو عنادي إيو عناكو كان هذا هينو كوري أنت كسر أنت كسر نقوليسا هذا ولي بان كوبا شالي شيء كوين وعسي قليلين مركا دي عد كافي ده بعد شو ده ما بنانا نسكت بحضه وهنا تركا كفردا واعتكاف كاجي هذا كبحين والله سبحانه وتعالى sheekh siyaasadda masaalix baa lagu ilaaliyaa nafeed iyo maaleed iyo wax la mid ah haddii caqiidada iyo masaalixda siyaasadeed iska hor imaanayso tee la hormarinayaa ma siyaasadda oo macno badan xambaarsan mise usuusha caqiidada كل سؤال شؤاد وما وعدا دينتو waxyaabaha inu sheegay waa ilaalinaysa oo maxaan ku dhahay diinta iyo maalka iyo aqliga waxa soo dhan waa lagu ilaalinaya siyaasaduna waa hogaamin iyo umada in waxa sharciga waafaqsan ee diintu uga shay lagu hago haday iska hor yimaadaan siyaasadda iyo buu yiri usuusha aqeeda tee loo hormarinaya deen iska hor yimaadaan baa lama rabade waa in siyaasaddu asal ahaan siyaasad sharciya waa inay ahaataa laakiin waxa laga yaabaa ninka su'aasha qoray siyaabo kale hadda wax isaga dhici karaan inuu u jeedaa dhici karta waa san hadda ma loo fahmi karo waa tan hadda de anzima ayaa caalamka islaamka dhisan muslimiin ah laakiin nidaamkii sharciga ahaa ee la rabay ummadda in kitaabkooda lagu maamulo inaanu dhammaystirayn siyaabo gaaladu nidaamka dimuqraadiga ay dejisay iyo waxyaabo noocaasa ayaa laga yaabaa in lagu ilaaliyo baarlamaanada iyo howlaha socda marka masaladaas oo culimadu ay ka hadlaan casrigan waana mas'ala nawaasisha kamida oo ragna yiraahdeen meesha yaan loo dhawaanba baarlamaanada iyo dadaba yaan la gelin saasa aslam ah oo halka ninkii banaanka mara qodxima muddo laakiin loo oran karo hadii faraha laga qaado de meesha waa meesha ummadda laga hagayo oo dasaatiir baa la samaysanayaa shariicada islaamka lagu burburinayo oo cilmaaniye liberaaliye iyo kootali oo dhammaantu isku ururo baa ummadda halka laga garaaci doona ninkii xaq iyo diin sheegeen la oran doona waa irhaabi oo mafaasid badan ka dhici doonta oo masaalix badan laga yaabo in ku lunto marka qoladaas waa culimada qayb kamid waa yiraahdeen qola kale iyagu hawshaaba waxay yiraahdeen meesha waa gaale weyn la laayaado xabada u qaateen kuwaasna iyaguna fitan iyo dhib iyo balaayo ka taliyeen aymada qaarkood waa sal loo badan yahay oo jumhuurta ah waxay qabaan in baarlamaanadan la geli karo maslaxaana loo geli karo maslaxada laga xaqiijinaya ama dacwad dadka meesha jooga ee baarlamaanka ee diinta loo sheego oo la toosiyo ama waxyaabaha la keenayo ee laga yaabo sharciga dadku yihiin wixii laga sixi karo hal la saxo nidaamka intii loo dhaweyn kara shariicada ee wixii baatiya laga saari karo hal loo tartiibsado oo hal loo wado lagu daadaheeyo si ummaddu ay si fiican sharciyeed u qaadato waxyaabo fara badan oo khaarij ka imanaya wixii ummadda looga digi kara looga digo wax fara badan noocaas si loo ilaaliyo waa la geli karaa meesha marka la isugu tago waxa ka imanaysa andimada taaladii waxa la yiraahdo aghlab baa lagu kala xukumaa oo xukunka u dambeeya lagu kala baxaya waxa weeye fartaag iyo codka qaalibka ah meela qaarkood shay aan shariicadu ogolayn in farta loo taago sharciiba nusuus ku leh baa laga yaabaa farta in loo taago oo marka shay munkar oo weyn meesha ka dhaco adigina meesha aad joogto maslaxana aad u joogtay islaamiyaad ka shaqeyso
armutow ninkaas halka u jeeda leeyahay meeshati aad hal la galo sawtan sharcigi waxaan ahayn baa loo fartaaga adna aad fadhido waxna ka qaban kari weyday oo marka teel maxaa la yeelayaa in halka ay higsanaysa waa dhici karta waana wax yimaado aan garanayaa majlisul nuwaabka Yaman waa iyagoo masnacdan oo warshadan oo khamri ah meel siira leeyahay ku taala baaragii baarlamaan ku jiray culimada ahaa waxa soo jeediyeen arinta tan dal islaam in warshad khamri ka dhisnaa ma banaana وين أرنت تلجوجيا وفتاوى العلماء ماشي كشيء وحنا بلقى أخري وخبري أود مسائل كإجماع حراني مديس مركزا مد وزير كسياحة الضلحيسك بينتو كعيب ولي باشت كسوق على ضلك يا أنت حسابي سوق شيء يا أنت معهم كل يمادو إنكم مع ابنية مسلم مع أبيه ده قارد إيمان يسعى بيسا سمعت قارد بيع بيسا مركب هو إنكو يجون بمحن قري marka wuxuu ka dhigay baashiyo bahal intaas oo dakhliga bay waddanka soo gelis markaas uu yiri ay kii haystay baarlamaanka meesha haystayna wuxuu yiri ay farta loo taago yaa qaba in la daayo dibal oo dhan fartaysa labada gacmo taagay markaas la yiri budgetka loo kordhiyo baashi in la xidha daayo la kordhiyo sumarkt marka horta waxyaabaas way dhacayaan laakiin adigu marka hore nidaam aadan samaynin oo aadan awood u lahayn kulligeed wax ka bedesho أول ما يشوف ما يشوف وحنا بدل كرتو أول ده كم الله هاي أبوي حطت كهذا شو أو ديدو أو عاد اللي لا يعرف فاتقوا الله ما استطعتم واحد ذنبي كويس تمشي مرة أبو كهذا الشيء أو ديدي أو صحيح ويدي وهذا فقارة ومطر كهذا أول موقف كاجا ورسوله حشة صلوات الله والسلام الحديث صحيح مسلم إن ما مرأة أو ظلم يدب وحقوة أو جور وحقوق حكومة يا إيمان دونان markaasuu rasuulku yiri man ankara faqad bari ninkii ku inkara waa ka bari noqday ninka ka joogsada faqad salim walaakin man radiya wa taaba ninka ku dambaabaya loo haystaa waa ninka ku raali ah waxa meesha laga xukumayo ee ku raacaya ka way kala haystaa marka waxa weeyaan wixii noocaas adigoo maslaxay khayr ka shaqeynay haday lagu dulabsado wax ka dul dhacaan awoodana ka baxsan waxay la tahay inaadan ku dambaabaynin hawshaadii iyo waxaad wadan jirtay khayr aad wadaysana wad wadaysaa hada waxaan isticmaalaa meelahaas buu ka hadlayaa ninkani hadduu si kale u fahmanay isagoo bacday doon su'aasha say tahay wallahu sheekh haweeneyda ma isticmaali kartaa waxyaabaha caadada tagsiyaha si u sooto aymadu way ka hadlaan culimada casrigu qofka dumara haddii ay rabto inay bisha Ramadaan dhammaystiranto oo soonto inay kiniinka iyo waxyaabaha la isticmaalo dhiigga dib u dhigaya inay isticmaasho way bannaan tahay laakiin waxa sharti ah inaan xuubka iyo kiniinka isticmaalaysa aan dhibaato u keenaynin waa in arrinta laga aamiyaa laakiin haday cadaataba ay dhici karto in dhiigaba uu tagsiinayo oo mashkaakil kale ku reebayo waxa weeye markaa ma bannaananayso waana ilaahay subxaanahu wa tacaala banaati aadam oo dhan wuxuu ku xukumay weeyaan kuna dambaabi mayso haddii ay ayaamaha xaydka tahay ay sharcigu lama ogola inay soonteen in ayaamaha aanay soomin wax dhibaato ah malo wax dambi oo saar ma jiro laakiin hadday istaa ka faa'iideyso arrinta fatwadaasi waa sugan tahay waxay soo baahan tahay in la hubiyo inay wax yeelayso waxay isticmaalaysaa iyo in kale shardigaasaa ku xidhan wallahu subxaanahu wa tacaala sheekh haweeney haddii ay dhali weydo khiyaar ma u leeyahay inaan furo دل ويد معنا قف ده أور لو دل وياه ولا مكتي يعني هذا داينو أنا أي تاي قف ما دشاه ما دريس وكل وشي ده خيار موري أنا فره معنا يصعد هذي لكن هذا دل ويدو ده ما فره إسقان ما يسمعنا وشي ده وهوين أن أرور علين وهذا ده ورثكو هذا رخاتين تبكر بارو بويضة الأنثى أو حيابها وحميه دي بان جيرين با لومay waxa malaba yawana ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku sheegay in afartaas sifa ay jiraan mid gabdho u dhala qof maxaan ku dhahay wiilal u dhala qof labadaba la siinayo mid wax dhalaynin inta waa la sheegay marka arintaas asal ahaan waxa la talaaqu ahkaamta shanta uu qaata waxayna yiraahdaan asalkiisu waa karaaha talaaqu إن كستو حديث كورنيا أبغض الحائل الله الطلاق وحديث ضعيفة لكن
waxaa laga qaadanayaa naska ilaahay subxaanahu wa tacaala maruu ka hadlayey ninkii iilaaga sameeyey iilaagu haweenaydiisii buu ka dhaartay oo yidhi kuu iman maayo dhaar buu ka maray aan u teginba wuu ka dhaartay marka waa taleeyahay fain faa'u yani wuxuu 4 bilood marka xaq u leeyahay inuu ka maqnaado fain faa'u fa inna allaha ghafuurur rahiim wa in azamu at-talaaq fa inna allaha samii'un 'aliim hadduu soo laabtana ilaahay waa dambi dhaaf badan waa alla ghafuur dambi dhaaf badan oo naxariista hadduu furiin goostana ilaahay waa maqlaya waa arkaya hanjabaad baa ku jirtay kuleey hadduu talaaq goosto inuu furo ilaahay waa ku arkaya waana ku maqlaya halkaas fuqahada qaarkood aymadu ay ka qaateen waxoogaa talaaqa asal ahaan waa laga fiicaya laakiin wuxuu ku bannaan yahay asbaabu ku bannaanaanaya asbaabtan waa ka mid qofku dee ilmuhu doonaya ilma hadduu rabo ilmuhu maqaasida loo guursaduu ka mid yahay ilmuhu qofkii dumar hadday cadaatayna aan dhalaynin ninka dee waxaa uu xaq u leeyahay oo fiican reerka aanu dumine hadduu awoodu leeyahay inuu guursado inuu gabadhana hayo qofkan dumarna hayo oo guurka reerka aanu buruurin mid kale iska guursado waas haddii aanu ka baqayn dee inuu cadaalad samayn kari waayo hadduu ka baqayn inuu cadaalad samayn kari waayana dee iyada qudheedu iska furo iska bannaanta haddii iyadoo aanay ku raalli hayn lala guursado iyada qudheedu iska furay marka waxaa xaaladdu in la ilaaliyaa fiican hadduu isku wadi karo reer kala samaysan karo mar haddii iyada xaggeeda weeyaan isaguna waa fiican yahay asal ahaanna maqsadka loo guursa carruurtaa ka mid ah waa waxyaabaha loogu bannaynayo inuu qofku haweeneyda ku furi karo khulaasadu way bannaantahay baynu leenahay wallahu subxaanahu wa tacaala sheekh haddii maalinka bartamihiisa caado iga timaado maalinkaas ma soo qallaynayaa mise u idhaafay haddii adigoo waa haweeneydii daahirka ahayd ee soomanayd rabadaan gudaheeda ayaa dhiiggii ka yimi iyadoo maalintii aanay dhammaanin maalintaasi marka uma jirto qado ayaa laga doonaya oo kunnaa nusiibu dalik fanu'maru biqadaa'i الsawmi walaa nu'maru biqadaa'i الsalaawaati caaisha lahayd soo muslimay ahayd hadda asxaabeed baa laga halkaas waxaana la fari jiray marka nagu dhaco dhiiggu annagoo markaa dee soomanoo rabadaantii ay tahay inaannu hadhow soo qadayno soonka salaadda si aanaan qadayn xadiid kale waa kii ahaa alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum miyaanay ahayn haddii ay xaydo midaan soomayn oo salaadayn fadalika nuqsaanu diiniha marka waxa weeye mar hadday xayday maalintaasi gubatay ilaahay idinka xitaa gabalgaabka iyadoo daqaa'iq 5 daqiiqo 2 daqiiqo 3 daqiiqo eedaanka ka dhiman yahay haddii dhiigii way kanuu yidhaahdo maalintaad kuma jirto ajar waa iska helaysa kole qofkii soo kifaaxday oo ajarka ilaahay xaggiisa thawaabi waxuu iska helaysa laakiin maalintii qadaa waa lagaa rabaa ta kale haddii iyadoo xaydoo caadadii leh ay daahirsato maalinnimadii waxay leedahay inta ii dhiman ma faysanaya mise faysan maayo fuqahaadu halka way isku khilaafeenoo rag baa maalinta ixtiraamka yowmka iyo ha la ilaaliyo ha afaysato laakiin shaaficiyada iyo ayma kale waxay leeyihin mada waxbana afaysan maysee maba soomane hawleeda iska qabsanaysaa ilima soomane mar haddaan soon ku jirin saasaan muddo inay qawi tahay mar haddii aan soon ku jirin waa iska dhibaataan allah subxana wa taala jazaaka allahu khayr halkan wuxuu leeyahay sheekh gaalaysiinta khawaarijta iyo taheer cabdiwahaab maxaa u dhexeeya haddii labaduba dadka ay gaalaysiinayaan waxaan saxaynaa reer cabdiwahaab le horta ma jiraan reer cabdiwahaab kolley isagu qolada u jeedo reer cabdiwahaab dee meelahan soomaaliya dee garan maayo laakiin reer cabdiwahaab wuxuu ka wadaa sheekh maxamed cabdiwahaab buu sheegaya markaa sheekhu dee waa nin sheekha oo aimmadii mutaakhiriinta buu ka mid yahay nin caalimana uu ahaa oo maxaan ku dhahdaa jasiirat ulcarab wax badan ka qabtay wax badan oo inxiraaf ah ka qabtayba waa sheekhu marka ahlu sunnaha ragga calanka u sida ayuu ahaa ahlu sunnaha casrigaa joogay raggii ku muuqday kowka abuha marka in la yidhaahdo takfiirinta khawaarijta iyo takfiirinta maxamed bin cabdiwahaab soo isku mid maaha mar haddee wax la wada gaalaysiinaya sax maaha marka waxa weeyaan gaalaysiin wax la gaalaysiisaydaba waa laba nooc gaalaysiin xaq ah iyo gaalaysiin baatil ah oo
oo kitaabu ridda kutubta waa kamid dadku waa sawaysad u burto qofku isagoo waysa qaba sawaysadu ka burto jawaabtu maxay tahay isagoo islaama baa diintu ka buraysatay u gaaloobaya ama haddii takfiir la soo qaado gaalnimo inaan jirin waxa weeyaan qofkii hadduu diinta wuxuu ku ridooba la helo riddadiisu ay sugnaato iyadoo dawaabideeda iyo shuruudeeda cinda ahli sunna say u eegeen loo eegayo qof diinta ka baxaya marka maxamed ibn abdul wahhab rahmatullahi alayhi isagu manhajka ahlu sunna ay ku socday waxaana laga soo guurinaya kutubtiisa sida rasaa'il shakhsiya iyo oo lahaa marka dib u eegto wuxuu oranayay xukun aan lagu ijmaacsanayn wax kuma gaalaysin ciidan waxaan kufrigiisa lagu ijmaacsanaynba waxba kuma gaalaysiin waana sida sax ah risaalo aad u fiican baa jiro leh mukhtasar taqriiraat a'immat ad-da'wa fi mukhalafat al-khawarij ila hadalkan hore u soo duulay marka mujallad aad u fiican weeyaan oo wuxuu aad uga warramayaa aymadii najdiyiinta ahaa maxamed ibn abdul wahhab iyo talaamiidiisa ay ka dambeeyay siday marka iyagu dariiqay ku socdeen takfiirinta iyo khawaarijta mowqifka qabeen iyo say khawaarijta uga hadleen iyo say manhajka uga dagaalameen iyo aad kitaabkaas uga hadlaya khawaarijta marka takfiirkooda waa mid mare sheekhu isagu de waasaynu sheegnay oo waxa weeyaan marka hore takfiirku asal ahaan de waa masala sharciya buu haystaa kow marka labaad takfiiru mucayanku qofkaasi markuu ku dhaco gaalnimo xunka lagula soo boodi maayo waxa weeyaan asal ahaan waa in loo eegaa shuruud iyo dawaabid waxa la shuruud waa in la helaa islaamnimo inuu yahay baalig iyo caaqil yahay mawaanic weynay jirtaa oo qofkani mawaanic weyn la waayaa oo aan qofu la khasbay ahayn oo kufriga lagu khasbay qof maxaan ku dhahdaa jahli weynaanu jirin marka xujadu weyn ogantaa siyaabaha wadadaas uu sheekhu mara laakiin nimanka la khawaarijtu de waxa weeyaan iyagu marka hore macaasida waxay ku gaalaysiinayaan qof dila waa gaal qofkii zinaysta waa gaaloobi qofkii been sheega waa gaaloobi waxaas markaa de waa khawaarij ama waxaan mukaffir ba ahayn oo dadka lagu gaalaysiin karaynin oo aan gaalnimoba ahayn bay dadka ku gaalaysiin khawaarijtu saadarteed waxa weeyaan wax shaqo isku maaha waa laba aan isu imanayn waa ahlu sunne iyo khawaarij waa firaqu daalla oo xadiidku sheegay bay ka mid yihiin sheekhuna ahlu sunna uu ka mid yahay marka la iskuma qaldi karo arrimaha noocaas dad badan oo lumay baa hadda jiro oo maxaan ku dhahdaa kuwa suufiya iyo kuwa cilmaaniya caqlaaniyiin luntay oo fogaaday oo raba inay ku nabaan manhajkan ahlu sunna iyo salafka bay rabaan inay ku nabaan manhaj takfiiri ah oo rabaan gaalada inay ka bixgeeyaan sumaarka marka rag baa marka ula booc ugu tukubaya in dacwadan iyo manhajkan sax ah ay la dagaalamaan oo dagaal ku qaadaan markaasay marba meel bay kaaga soo boodiyeen oo ila marka waa madhabkii wahaabi waa madhabkii dadka gaalaysiin jiray waa madhabkii caynka marka waa mashaariic iska socda laakiin dadku waa inay cilmi la barto ayaa waxaan lagu kala ogaan karaa wabillahi tawfiiq su-aashan waxay ka mid tahay su-aalaha dadka sheekha laga soo weydiiyey waxay leedahay sheekh dembi weyn baan galay oo waswaas igu haya qaraxii shaamow baan qayb ka ahaa waan cumraystay waan toobad keenay haddana waswaas baa haya maxaa igula talin lahayd waxay la tahay qaraxii shaamow dad badan uu la socdaa xamar buu ka dhacay dad islaam ah oo waxaan filaya waxay ahayd meel caafimaad dad jaamacadda caafimaad may dhammeeyeen oo loo xidhayey dadkaas baa la isku qarxiyey nin isku qarxiyey ummad fara badan baa meesha ku halaagsatay oo dad fara badan oo wanaagsan oo saynu ku malaynayno oo aanu qaar badan aan ka aqiinay baa meesha ku dhintay rag culimaa ku dhintay ninkii hebel cadow la odhan jiray oo nin sheekha ahaa maxkamadii ka mid ahaa wuu ku dhintay waxaa ka mid ah nin odhan jiray waayeel naanaysiisu ahayd oo isna nin maxamed cabdillaahi waayeel miyuu ahaa nin sheekha ahaa nin la odhan jiray abubakar xuseen oo raggii ducaadii xamar ahaa oo sheekh ahaa baa ka mid ahaa iyo inta ilaahay uun garanaya faraha badan ee wanaagsan ee meesha loogu yeedhay xafladda ee ku leeatay meeshaas jaraa'im buu ahaa jaraa'im xasuuq ah oo dad islaam ah oo xaflad u yimi oo maalintaa maalin farax leh buu ninkan leeyahay qaybtaas qayb baan ka ahaa oo shuraakan kuwa arrintaa farsamadeedii
arrintaas arrin khatar weeye toobadda loo diidmayo toobad waa furan tahay laakiin cumra kaa saari mayso waan soo cumraystay kaa saari mayso oo toobaddii kuma filla waxaa toobaddaadu noqonaysaa inaad dadkii aad baadi goobto meesha ku leeday iyagaaba iska war hayaa laga yaabaa aad isu dhiibto ay go'aan kaa qaataan oo aad tihaado way kan raggii hawshaa shurakada ku amaan ahaa raggii qaraxa iyo maamulay baan ahaa wixii markaa dee lagaa garto halkaasaad xukunkaagu noqonaya in la iska kaa cafiyo la iska kaa saamaxo in wax lagu weydiiyo aduu shareecun baa lagu bandhigaya kiiskaagu wuxuu noqdo falka mushaarik baad ku ahayd ninkii isagu qaraxa fuliyey ee isqarxiyey dhimayo dee hadda ma joogo laakiin qayb baad shurka ku ahayd saad dee sheegayso bal marka horta iyagii u tago markaa isu tagtaan markaana shareeco baabkeeda la isu eego iyo maxkamado halkaasay ka bilaabanaysaa toobadkeenkaagu wax kale oo toobadii ma jiro dee waa furan tahay laakiin macnaha waxaan ka wadaa mawduucan dembiga noocana toobadiisu waa caynkaas waana fiican tahay ninku haddii uu dee ka dhab ay tahay waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaana wa tacaala faraj kuu furo intaan aakhire la isla gaadhin inaad naftaada si fiican toobadkeenkaaga aad u dhammaystirato saas ayaa kuu wacan wabilaahi towfiiq qofaan deyn ku lahaa sako ahaan ma uga dhaafi karaa oo sakada ma ku beegi karaa khilaaf ka jiro qof aad dayn ku leedahay dayn aad ku leedahay ibraa ma samayn kartaa oo daynkii waan kaa saamaxay adoo ku beegaya muqaabil uga dhigaya zakadii aad bixin lahayd qowlka raajixa waxaa weeye mada zakadii waa inaad bixisaa xoolaad bixiso jeebkaaga ka soo saartaa la doonaya waad dhiibto laakiin dayn aad ku goyso waxaad baa walba laga yaabo quusba inuu kaaga jirtay oo yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa rasaqnaakum aayadda marka la soo wado waa tii ahayd walaa tayammamu alkhabiisa minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih haw qasdina markaa wax bixinaysaan taliidata sadaqada teeda hoosaysa oo idinku aydaan indha isku qabad mooyaane si kale aydinaan ku qaadateen wataa macnaheedu muxuu yahay dee hadda inaad lacag bixiso jeebkaaga miskiinka halkaa taagane baan wax ka siiso iyo inaad wax kaa maqnaa aad saamaxdo labada yamaa hooseeya yamahaasa sarreeya waxaa hooseeya dee waxaan maqan maba haysidba dee mogti maxaa sarreeya kanaad bixinayso marka waxaa rabaa waxaad bixiso jeebkaa ka bixisa lagaa doonaya oo zakadii ah khud min amwaalihim sadaqatan tudahiru ka qaad baan maal baa laga qaaday marka waad gacanta ka bixisaa ninkaana deynkaad ku lahayd waliba maa intaad sataa war waa kan hoo zakadiiye isna uu yidhahdo hooda inta wuxuun ka yar maaragtay iska bixiye oo soonigii zakadaad qaatay maa xooli xagaad marisa waa inuu xisaabta ka daba geyso sax maaha marka waxa weeyaan zakada waa inaad bixisaa deyn aad ku saamaxday waxa weye kaa gudi maayo على القول الراجح والله سبحانه وتعالى. شيخ زكاة الفطر ما كو بخين كرا انتم بلا إيدانه. والله كو بخين كرا. ودي الرسول صلوات الله والسلام عليه وكحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وصاعا من شعير صاع شعير سوس شعير و دي وعويان وأفر ماركتي حفن أفر مدبالي هذا صاع. هذول على بكيري برد baa loo badinaya qaarkood 3 kilo ka dhigaan 2 kilo barto bayna ku isticmaalna marka de saaca shaciirka baa leeyahay iidaan marka cid ma sheegin marka waxa weeyaan waa lagu bixin karaa wax dhibaato ma laha jazakallahu khayran faahfaahin naga siisaa qof waayeel ah oo aan soomi karin sida wax looga bixinayo mise raashin baa laga bixinayaa oo keliya qofka waayeelka ah ee aan soomi karaynin oo ay hayso qofkaas ilaahay baa quraankiisa ku sheegay وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكان سبحانه وتعالى marka miskiin baa la quudinaya marka qofku wuxuu khiyaar u leeyahay inuu hadda waa tan dhamaatay rabadaantii oo kale inuu maalin uun qada intuu sameeyo 30 miskiin haddii bish 30 ku dhamaatay ama 29 ku dhamaatay 29 miskiin uu yeelo qada ka dirgiyo odayga markaa wuxuu ka dhacday waana samaalkii waa samayn jiray asaas ama raashin
maxaan ku dhahdaa raashin engega inaad siiso labaduba aday ku furanto wax dhibaataa ma laha oo fuqahaada jumhuurtooda mud bay yidhaahdaan laakiin labada mud baa ka fiican nisfu saac oo hal kiilo markaa 29 kiilo ama 30 kiilo inaad siiso ama masaakiin u qabayso ama miskiin siisid ayaa markaa kuu furan iyadana siyaabahaas aad u bixinaysaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sheekh ka waran haddii qof aan dacweeyo oo boolisku lacag bixi ugu dhahaan lacagtaas xukunkeedu muxuu noqonayaa haddii aan lacagtaa aan bixin waxba la ii qaban maayo boolisku asal ahaan dowladday u shaqaynayaan mushahar bay qaataan ninka direyska gashan ee mushahar qaadanaya inuu dadka lacag ka qaato waa xaaraan waa laaluush waa rishwo shaqadiisii uu ku shaqaynayey ee mushahar ku qaadanayey buu rabaa inuu haddana dadka lacag ka gurto arrintaasi waa arrin aan bannaanayn sharca islaamka waana waxyaaba hadda curfiba iska tahay meelaha kan daba curfiba waba la isla wada ogol yahay waxaad iska qaatay ordoo lacag siiya dee haddaa soo qabta qofkee wada maxaa direyska u xidhan yahay haddaanu shaqadan qabanaynin ee lacag lagu bixinayo mu gurigiis ka tago qaar waxay koonayaan mushaharkan ku filaynoo dee mushaharka haddaanu ku filayn reerkiisa qabto iska dee gurigiis ha tago oo ha shaqaysto direysna waan xidhanahay mushaharna waan qaadanayaa shacabkan lacag baan ka qaadanaya ninkii dembiilaha ahaa ee raba in la xidho ilaa lacag layso soo xidhi maayo wax shareecada ku bannaan maa waa baatil waana xaaraan cunayaan dadka waxaa samaynaya allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh haddii uu qof gaal ah hadiyad ii soo hadiyeeyo sida dhar oo kale ma qaadan karaa hadiyaddu waa la qaadan karaa cid kastoo ka timaado oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gaalada hadiyadda uu ka qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagaana laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waaweynay waa tii khaybar raashinka u samaysay yahuuda haweeney yahuuda baa raashinsay miqawqas iyo boqorro waxay hadiyay u soo direen intaasoo hadaayadu kala duwan baa boqorrada rasuulka u soo diri jireen marka waxaa weeye hadiyaddu qofka gaalka waa dhici karta qofkan qofay wada shaqayn jireen ay isbarteen ama wuxuun oo dhar iyo wuxuun hadiya u soo diray marka wax dhibaataa ma leh way bannaan tahay wallahu sheekh waxaad ka warantaa dadka dharka isku dhejiya ee haddana tukanaya iyadoo cawradoodii sawiran tahay ama dabada suwaalku ka dhacayo oo dabadiisii muuqato waxaynu leenahay masaajidka markaad imanayso ama masaajidka kaliya maahee mujtamaca dhex socoto qofku inuu cawradiisa asturo oo dhar aan ku dheganayn qaataba asal ah saas ayaa laga doonaya masaajidka markaad imanaysana ood ilaahay is hortaagaysana khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ziinadu waa huga iyo dharka in la qaato marka dhar fiican rabbigaa markaad is hortaagayso adoo cawradaadii ay muuqato oo maladii kuu dhaysan tahay oo surwaalkaasabaa la isku haystaa waxaan garanayaa sheekh cali suufi raxmatullaahi calayhi masaajidkiisii muqdisho markaan dhalinyar tahay dhalinyartu waa iska hawlbadeen xaggaa safkoona wuu rabaa surwaalna waa gashan yahay salaawiil anoo gashan safkaana soo geli jir markaasuu xaggaa noo riixay war ka baxa waxaan salaawiil marka aad buu la dagaalami jir aad baa loo dagaalami jir markaasuu odhan jiray war futo xumeeyey bay gashan yihiin buu yidhi oo ninkii intuu mikrofon qabsado saa markuu isjoodaba alaabtiisa xagga dambe ka muuqataa buu yidhahda sheekh odhan jir aad buu la dagaalami jiray sheekhu raxmatullaahi calayh marka runtii waana wax waaqic oo qofkii suwaal haddaad gashanayso suwaal fadfaad oo waasic oo ha noqdo laakiin waxaan hadda waa la sii waxaynayaado qaar bay wax ka sheekeynayeen baca hoosta ka geliyo in se ugu dhegan yahayba aanu ka baxaynba bac bay xaggaa hoose ka geni marka si uu isaga siibi karo waxyaaba qaraa'ibka isagaba is ciqaabayba cadaab isgeliyey ya marka waxaad u baahan tahay inaad allah baad hor taagan tahay dhar wanaagsan oo waasic ah aad hor taagto salaadaad ku tukanaysaa imada qaar bay aqal xaaja makruuh karaahay noqonaysaa in dharka noocaas lagu tukado hadda dee salaaddii waa burtay odhan mayne waxaanu leenahay waxa weeye karaaha baabkeed bay soo gelaysa waayo qofkii cawradiisii ayaa daahir oo muuqanaysa oo si qaab daran buu labisayey marka waa in aad ilaahay ka xishootid oo khalqiga ka xishootid kuwan halkaasay ka lalaadeen suwaalkii dib u jiidayaan waad la yaabaysa waxaasoo dhan waa taqliid lagu dayanayo waxa laga daawaday shaashadaha laga daawaday oo ama dad gaalaa ama kuwa ciyaartooy ah ama kuwa jilayaala ama wuxuun ah baa meel laga arkay nin gaala oo aan ilaahay aaminsanayn baad ku dayanaysa
dhalinyartu marka ilaahay ka baqeen dhalinyaroy waxa qiimaha badan sharafta badani waxa weeye huga shariicadu ayna fartay ilaahayna faray diintiisu ina farayso qaabka loo xirnayo waan isbaal kala hayn oo shay waasica oo la doonayaan aqwa uu ka sareeyo dharkaagu waxa weeye dharka shariicadu ku fartay inaad qaadato kaas baa sharaftaada iyo qiimaha ku jirta inaad ku dayato salafkiisa u labisan jireen dharka say u xidhan jireen dharkaas aad doonaad qaadato taasaa qiimaha iyo sharaftaada ah marka waxaan leenahay taqliidkan baashi meel xun baa layna maraya rasuulkuna waa ka sii waray salawaatullahi wasalaamu calayh laa tatabacanna sanana man kaana qablakum waa ku dayan doontaan sunnayaasha waddadii dadkii idinka horreeyey oo weliba alyahuud wanasaara buu rasuulku sheegay waa sidii rasuulku u warramay waa sunnaha dhacaya ee waaqic ah ee rasuul ka warramay salawaatullahi wasallam markaa la isdaba qabto ilaahayna laga baqo waxyaabaha dhalinyartu ay samaynaysan iska daayeen wallahu subxaanahu watacaala aclam jazaaka allahu khayr haddii ay xaaskaagu naagnimo kuu diido oo warqadda kaa dalabto meher ma igu leedahay haddiise aad furto oo aad dib u soo raajacsato maxay meher yeelanaysaa isu kaa diido oo aad furto dee meherka waa kugu leedahay maxaad igugu lahan weydi sumaad qabin meherku maad qabin isu kaa diiday fur bay ku tiri waad furtay socaynka ma hadalku waxaad yeelanaysaa marka inaad waxa weeyaan meherka waa laakiin wuxuu isku qaldaya baa laga yaaba wuxuu maqlay nushuuska qofka dumar haddii ay ninka isu diido oo malaafiq qabadeeda wuxuu ka maqlay naakirad baa jirta naag la yidhaahdo qof la yidhaahdo biil iyo masaariif lama siiyo marka biilki iyo meherka waa isku qaldaya suma marka yaa meel buu yarku xoganaya marka dee nushuusku axkaam buu leeyahay hadday naajisa noqoto oo ninkii isu diido oo nin diid ay noqoto oo adigu dee aadan dhibaabo kale iyo wax kaloo dee keenaya aana jirin xaggeeda ay tahay waxaa laga yaabaa biilkii iyo waxyaaba kale ka dhacdhacaan laakiin haddaad furto dee meherka waa kugu leedahay khulcigu wax leeyana waa jira dee isagoo say bannaanoo hadday iyadu sukaa diiddo ku diiddo oo ay markaa dambe dee tihaado loo khata waado inaad tihaado dee markaa meherkii ay soo celiso waxaan bixiyey oo khulci baa leeyahay kaasina waa masale kale marka masaa'ilkii aan iska ka qaldamin haddii aan soo ceshado qof dumar aad furtay waad soo ceshatay oo rajciyay ku ahayd dee meherkii hore un weeye meher kale ma jira soo ceshigu meher maaha ee dalqadii hore maad ku qabtaa waxbaa kaa dhacay dalqadihii meherkuna waa kii hore un allah subxana jazaaka allah qofku intuu qubaysto wayse ma niyoon karaa isagaan janaabo ka qubaysan janaabada qofku markuu ka qubaysanayo oo biyaha isku shubayo ayaa طهارة الكبرى هي طهارة الصغرى حدث الأكبر هي حدث الأصغر أما يشكو الشيء مركو كقبيساني إنه نيستو ويسدي نل نيستو جنابة إنه كقبيساني ونيستو نيداس ونيستي وحي كينيسا إنه كفران تاي ميريغاس وكفران ياي ويسن كفرين لكن هدين ميري عادي وقبوسي إسكا قبوسانيو سراجع وهو يعني يدو وينو أما ويسكا هرمرياه ومركو انتو isjoodo waysa kaamil waysaysta kadibna biyaas ku shubaa oo waysa qaba marka dib u waysaystay ama markuu soo baxo inuu waysaystaa laakiin niyo kaliya lagu jamcinayo saraaji xamada Allah subhanahu wa ta'ala jazakallahu sheekh nin iyo gabadh warigoodii isa siiyay iyaguna israba telefoon ma ka meherin karaa waa masaa'ilka ay madu ka hadlaan casrigan waxyaabaha de tawaasulkan iyo qalabkan la iskala xiriiro iyo soo kordhay marka ما بنانتي تليفونك wax laga meersho waa mas'ala khilaafiya majaamicda fiqiga rag badan waxay tilmaamayaan aan banaanayn